haddii diamondka dhiiqa lagu tuuro oo laga soo saaro waa isla sheegii qaaliga ahaa ee diamondka dadkuna waxay yiraahdaan ubuxu ma abaarsado isaguna waa sidaasi oo kale waa kubad sameeyaha iyo kubad baasaha hal abuuraha ugu wanaagsan dunida laakiin haatan wuxuu u muuqdaa ubuxii abaarsaday inkastoo weli heerka ugu sarreeya kubadda cagta uu ciyaari karo xidiga dibad jooga ay ka dhigtay kooxda Arsenal una diiday inuu cagaha soo saaro garoomada kubadda cagta sabab lagu sheegay diintiisa iyada oo Shiinaha iyo ciyaaryahanka ay isugu dhaceen in uu xidiga ka hadlay wax ku saabsan dadka muslimiinta ah ee lagu gumaadayay Shiinaha muuqaalkan oo nolosha gaarka ah Mesut Ozil aan kaga hadli doono waxaan ku soo gudbin doonaa sida xiriirka dhow uu la leeyahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan noloshiisa caruurnimada iyo sida adag oo ay ku soo bilaabatay jaceylkiisa kubadda cagta iyo markii uu bilaabayo goobaha uu ku ciyaari jiray sababta keentay in isagoo dhalinyaraha uu isaga fariisto xulka qaranka Jarmalka dagaalka uu kula jiro kooxda Arsenal ee keenay in la go'doomiyo intaasi in ka badan ayaan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan aan kaga hadli doono sheekada caruurnimo iyo heerka sare ee kubadda cagta uu ka gaaray boqorka caawinta Mesut Ozil daawaday markii kugu horeysay oo aadna soo booqatay haddii ay tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad like iyo follow dhahdo page-keena isla markaana aad u share garayso saaxiibadaada kale ee jecel inay wax ka bartaan taariikhaha ciyaartoyda oo maalin waliba aan soo gudbiyo mahadsanidin diamondka si kasta oo loo tuuro lagu rida dhiiqiya meel xun waxa marka laga soo saaro uu yahay isla diamondkii sidaasi oo kalena Mesut Ozil waa diamond ku dhaxlumay garoonka Emirates Stadium oo ay kooxda Arsenal ku ciyaarto dibad joog ayuu kooxdan ka yahay muddo bilaa waxaana la go'doomiyay gabi ahaanba nafsadiisii jecleed kubadda cagta iyada oo kooxda koobaad laga ceeriyay xitaa looma quurin in loogu yeero kooxda dhalinyarada si uu aalamiitay ciyaaran iyo dhisa u helo ubuxu ma abaarsado laakiin dadku waxay yiraahdaan qofka fiican ee dhibaato la kulma waa ubuxii abaarsaday Mesut Ozil waxa uu markaasi ay haatan mid wali heerkiisa ugu sareeya kubadda cagta muujin kara haddii uu helo fursad uu kaga baxsado dhibaatada iyo waliba go'doominta kooxda Arsenal ay ku hayso Mesut Ozil wuxuu ku dhashay October 15, 1988 halka lagu magacaabo Klostren ee Jarmalka ka tirsan asalkiisu waa Turki halkaasi oo aabihiis uu haajiray waxaana qoyskiisu ay ka kooban yihiin 4 xubnood Mesut Ozil ayaa noloshiisa ku bilowday si aad u liidata isagoo markaasi qoyskiisu ay ahaayeen qaxooti soo galooti ku ah Jarmalka waxa uu dhashay xilligii ugu adkeed Jarmalka iyada oo shaqo la'aan baahsan ay ka jirtay halkaasi 70% dadka waxay ahaayeen kuwa aanan shaqaynin waxaana dalka ka jirtay cunsuriyad waalidiintiisa ayaana aad sabool u ahaa bilowga nolosha Ozil ayayna ku dhibtoodeen inay shaqo ka helaan Jarmalka iska daadeganaanshee xaafadii uu ku dhashay Ozil waxa ku yiilay dhowr guri oo aad u liita kuwaasi oo loo asteeyay inay degaan dadka saboolnimada lagu calaamadeeyay inkastoo caqabadahaasi ay jireen Mesut Ozil ayaa go'aansaday inuu guuleysto wax walibana gacanta uu ku dhigo si uu u noqdo ugu dambeyn kan ugu fiican taasi ayaana u suurta gashay waxa uu bilaabay waxbarashadiisa si uu isugu dayo in uu markaasi heerka ka gaaro laakiin ma suurta gelin waxaana uu weecday dhanka kubadda cagta Ozil ayaana kubadda cagta u isticmaalayay inay u noqoto wado uu kaga baxsado faqriga jaceylkiisa kubadda cagta ayaa ka bilowday inuu ku ciyaaro wadooyinka ku dhawaa gurigii ay deganaayeen Mesut Ozil oo aad u daayara ayaana soo jiitay indhaha daawadayaasha wadooyinka ku daawanayay waxaana markaasi loo arkay mid mustaqbal fiican ku lahaan doono kubadda cagta isagoo oo koritaanka ku jira ayuu waxa uu qaatay cashiro dhanka kubadda cagta waxaana uu gacan ka helayay waalidkiis oo kuwaasi oo si weyn u jeclaa dhankooda kubadda cagta Mesut Ozil iyo qoyskiisa ayaa ugu dambeyntii waxa ay heleen deganaansho iyada oo Jarmalku uu qaabilay 16,000 oo markaasi dad qaxootiya waxaana taasi Ozil ay u furtay wado uu kubadda cagta kaga xamaalan karo go'aanka uu la gaaray nafsadiisa oo ah in uu guul ka keeno kubadda cagta ayaana ugu dambeyn uu ka mira dhalay markii uu helay academic uu ku hormariyo kubaddiisa cagta Mesut Ozil ayaa go'aansaday inuu ku biiro Maymon Gah oo ah xero maxalliya
oo ku tiilay xaafadiisa halkaasi oo ciyaartooy badan oo daayara ay ku jireen kuwaasi oo dhammaantood muhaajiriin ahaa waxay ahayd meel aad markaasi ugu dhow xaafadiisa waxaana uu ku bartay cashiro kala duwan oo kubadda cagta la xiriira waayo aragnimo ayuu ka helay waxaana ugu dambeyntii u muuqday fursado inuu ka heli karo kooxaha heerarka kala duwan ee Jarmalka ka dhisan Mosid ilaa da'diisu ay kororto oo uu ka noqdo qof qaangaara ayuu halkaasi ku jiray Jacob Herman oo ahaa ku-xigeenkii madaxa dugsiga waxbarashada ee kubadda cagta ee Mosid Ozil uu ku jiray ayaana ku qeexay wiilkan yar ee kubadda cagta hamiga ka leh mid yar oo fantaasiga isagoo hadalkiisa raaciyay had iyo jeer waxaan dareemayaa inuu noqon doono midka ugu fiican ee kubadda cagta ciyaari doona Mosid Ozil ayaa saacad kasta oo firaaqa ah oo uu helo waxa uu hibayn jiray inuu ciyaaro kubadda cagta qoyskiisu ayaana bilaabay inay aad ugu taageeraan xirfadan uu jaceelka u qaaday wiilkooda waxay adduunyo sidaasi ahaataba xilli ciyaareedkii 2005 Ozil ayaa u dhaqaaqay nidaamka dhalinyarada kooxda Schalke halkaasi oo fursad uu ka helay waqtigaasi waxa uu ahaa wiil yar oo dhalinyaro ah waxaana uu soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee Jarmalka Bayern Leverkusen iyo Bayern München kuwaasi oo u arkaya wiilka indhaha weyn mid wax badan ku soo kordhin kara kooxooda si dhaqsiyaha ay Schalke u dhaqangelisay heshiiska ciyaaryahankan iyada oo dalabyo badan uu ka helayo kooxaha waaweyn ee Jarmalka laakiin si uu sii horumariyay xirfadiisa ciyaaraha 2008 Ozil ayaa u dhaqaaqay kooxda Werder Bremen taasi oo 5 milyan kula siyaacatay waxaana uu la joogay ilaa iyo sanadkii 2011 waqtigaasi uu kaga sii gudbay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inuu noqdo ciyaartooy kooxda kubadda cagta ee Real Madridna waxay ka caawisay mid indhaha caalamka oo dhan xada inkastoo mar dambe khiyaanooyin la xiriira dumarka iyo fadeexado soo wajahay awis uu sanadkii 2013 ugu biiray kooxda Arsenal oo ilaa iyo maanta uu ku sugan yahay Ozil waxa uu xiriir saaxiibtinimo oo aad u fiican la leeyahay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waana sababta kaliya ee uu ku waayay jagadiisii xulka qaranka kubadda cagta ee Germany waxa uu kala soo muuqday xafladiisii arooska isagoo si weyn u gacan siinaya waxaana dhowr jeer sawiro wada jira ka soo muuqday Ozil iyo Recep Tayyip Erdogan xidigan oo aad caan ugu ahaa saawaha dumarka waxaa la sheegay ilaa in ka badan 50 dumar inuu xiriir la sameeyay inta uu ku guda jiray xirfadiisa kubadda cagta kooxda Real Madrid waana sababta keentay inuu waayo maqaamkiisii garoonka Santiago Bernabeu Mosid Ozil waa muslim kaasi oo muujiya diintiisa marka uu garoomada ku jiro waxa uu akhristaa aayadaha quraanka inta uusan garoonka gelin sida dhowr jeer sawiradiisa ay ku soo muuqdeen waxa uu ka hadlay xasuuq ba'an oo ka jiray Shiinaha kaasi oo loo geysanayay dad muslimiin ah waxaana markii uu arintaasi ka hadlay ka carooday dawladda Shiinaha kuwaasi oo sheegay in Ozil Arsenal ay iska dirto maadaama dalkoodu uu ku xadgudbay waana sababta ilaa iyo maanta la leeyahay Arsenal Shiinaha dartiis ay u ciqaabaysaa xidiga Mosid Ozil isaga ayaana sidaasi bartiisa Twitterka ku soo qoray guud ahaan daawadayaal muuqaalkan aan kaga hadlayay nolosha gaarka ah ee xidiga Mosid Ozil ayaan intaas ku soo gabagabeynaya mid lamida muuqaalkan inteenu ku kulmi doona nabadgelyo